بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalaha Soomaaliyeed aad baan idin salaamayaa meel walba aad naga dhageysanaysaan haddaba sida aad ku aragteen ciwaanka hore waxaan rabaa inaan idin la wadaago 5 qodob oo ku tusinayso inaad hayso wadada guusha waa 5 qodob oo kaliya haddii 5tan qodob aad isku aragtid in aad kamid aad isku aragtay qodobada qaar kamid ah haddaba waxaan kuu sheegayaa inaad wadadii guusha aad raacday guusha sideedaba dadku siyaabo kala duwan ay u fasirtaan hase yeeshee guusha lagu sheegayo ama success ereyga lagu leeyahay waa qof wixii uu bilaabay dhameeyay haddii aniga aan saakay go'aansaday in aan video 20 ama 5 video aan maanta soo daayo qorsheyga subaxii uu ahaa oo 5 ii suura gashay inaan soo daayo taas waxay cadeynaysaa inaan guul ka gaaray hadafkii ama qorshii aan markaasi aan plan gareystay haddaba waxaan kula wadaagayaa 5 qodob oo ku sahlayso inaad wadada guusha dhabaha saartay haddaba aan ku sheego identify your goal qofka marka ugu horeyso oo uu rabo inuu wax qabto waa inuu ogaado waxa uu rabo inuu gaaro hadafka uu rabo noloshiisa inuu ka gaaro what do I want to do haddii aadan marka hore horta aadan identify gareyn meeshaad u socoto meeshaad ka timid iyo meesha aad taagan tahay way adkaanaysaa inaad problemkii aad xaliso waa the first thing inaad tahay qof garanayo waxa uu rabo inuu sameeyo bal horta nala wadaag waxa aad doonaysid inaad sameyso markaan ogaano wixii la sameynayay inta kale way falow gareynayaan labo dhaleecaynta lagu joodiyo haddii aad isku aragto dhaleecaynta ay dadka ku joodiyaan inay ku joojin karto ama ay ka hor istaagi karto qorshahaadii ama hadafkii nolosha aad lahayd inaad gaarto dabcan taasi waxay ku tusinaysaa inaadan guul gaari karin dhaleecaynta lagu joodinayo qofka adag ay dhabka tahay inuu horumar gaaro waa in dhaleecaynta lagu jeedinayo aad dhageysato wixii markaasi adiga dan kuugu jirana aad kala baxdo wixii ilaahay kuuma darnaaday oo laga waaniyay ee lagu dhaleeceeyay ee dadka ay kugu criticize gareeyeen oo aan wanaagsaneyn aad iska dayso laakiin taas macnaheedu ma ahan inay ka joojiso goolkii ama hadafkii aad lahayd soo marka dhaleecayntaada inaad dhaleecaynta lagu jeediyo ama criticismka lagu jeediyo dhageysatid wixii wanaagsan kala baxdid intii kalena aadan dhag jalaq u siinin way guusha rasmiga ah laakiin haddii dhaleecaynta lagu jeediyo aad ka xanaaqdid oo aad tahay qof reactive ah ilaahay kuma darnaaday short term bada wixii lagu sheegay ka xanaaqaya ka dagaalamayo taas waxay ku suuragelinaysaa in aadan guul adduunka aadan ka gaarin sababtoo ah cilmiga intiisa badan wuxuu ku imaadaa dhageysiga iyo saxida marka waa inaad noqoto mid saxitaaga qaato laakiin waa inay ahaato waxaad qaadanaysid wax perspective ama saxitaan macquul ah wixii kale oo dadka ay iska sheegayaan dhag jalaqha u siinin qodobka saddexaad ma tahay qof lagu daydo ma tahay qof role model ah oo bulshada uu la nool yahay ay ku dayato ay ixtiraamto oo ay sharafto haddaba haddii qof noocaas oo kala ah tahay waxaan kuu rajeynayaa ama baan kuu sheegayaa inaad saartay wadadii guusha cagta inaad saartay haddii aad tahay qof role model ah oo qof walba uu dhaho waxaan rabaa sidii hebel oo kale inaan noqdo ayadana waa mid ka mid ah guulaha aad cagtooda aad gaari doonto hadduu ilaahay karaal noqdo qodobka afaraad ma rajo xumid qofka bili aadanka ah ilaahay kuma darnaaday waxyaabaha lagu amaano waxa kamid ah dadka guuleysto kale in markasta uu rajadiisa ay wanaagsan tahay wax kasta uu ku dhaco mar walba in uu leeyahay insha Allah wax walba way hagaagayaan marka laakiin haddii aad tahay qof wixii yar ka hor imaada ay quus gelinayaan ay noloshiisa dhanba joogsanayso taas waxay ku suuragelinaysaa weliga inaad mugdi ku noolaatid marka mar walba xaaladda aad kaato isku day in rajadaada ay wanaagsanaato inaad khayr ilaahay ka rajaysid inaad tiraahdo every one day everything will be okay hal maalin wax walba way hagaagi doonaan waa inaad tahay qof rajo fiican haddaba adduunka dadku waxay ku socdaan
qofka waa inuu yahay qof rajo fiican annaga dhan dhibaataan haysato qof walba problem haysta his own problem laakiin waxa dadka ay ku kala fiican yihiin waxay tahay qofna waa qof rajo wanaagsan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax wanaagsan ka rajeynayo qofna waa qof markii wax yar ay soo gaaraan sidii barafka kale u dhalaalayo wixii hadafkiisa iyo noloshiisana meeshaas ay ku ekaanayso marka waa inaad noqoto qof mar walba optimist ah oo nolosha rajo fiican ka leh kuwa kul midka ah qodobka shanaad ee ku tusinaya inaad tahay mid guuleysanayo ayaa waxa uu yahay markaad fiirisid guryaha ugu dhaadheer ee xaafadaha aad ku nooshahay marka aad fiirisid gaariyaha ugu qurxan markaad aragtid kombiyuutarada ee qaabka loo isticmaalayo oo kale markaad aragtid waxyaabo maskaxdaada ka weyn oo indhahaada ku muuqanayo haddii niyadaada mar walba ay ku jirto waxaan bini aadam baa sameeyay bini aadam baa holo iyo heerkan gaaray bini aadam buu ahaa qofkii abuuray korontadan bini aadam buu ahaa wixii waxaan sameeyay noloshaad waa gaaraysaa laakiin haddii mar walba niyada ay kaaga jirto waxaan suuragal ma ahan qofkan bini aadamka sidoo waxaan u lahaan karaa how could this hadaad qaab noocaas oo nolosha maaragtay dark side-ka aad ka fiirisid weligaa horumar ma gaaraysid guusha farteeda maxaa la jiray wadada guushana uma dhawid marka mar walba isku day qof walba horumar gaaray ama nolosha wax ku noqday in aad ka soo qaadid inuu adigu kala yahay 9 bil inuu ku dhashtay inuu wax walba sameyn karo ereygaadana maskaxdaadana weligaa waxa laga saaraa wax la dhaho impossible iyo wax la dhaho I can't do it niyadaada mar walba u sheeg inaad wax walba sameyn kartid in derbiga dhisan aad ka dhaxbixi kartid markii niyada aad saa u sheegtay waxa ku suuragelinayso wixii oo dhan inay ku fudaadaan amasaas horumar ku gaartid asxaabta aad baan idin salaamaya waan idin kaga mahad celinaya waqtiga qaaliga oo aad laakiin waxa iga xasuusida inaad subscribe saartaan oo aad channelka igu taageertaan like-na aasisaan anigana waxaan rabaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo inaan soo daayo barnaamijyo fara badan oo markaas aan u arko in walaalihii Soomaalida ay wax badan ka faa'iidi doonaan anigana aan wax badan ka faa'iidayo dabcan waxyaabihii suggestion-ka ah oo aad rabto inaad nala wadaagto kale mowduucyada aan doonayn inaan kala hadalno waxaad noogu soo qortaa commentiga nala wadaag barnaamijyada iyo qaabka aad isleedahay channelkan waa lagu horumarin karaa aad ayaan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh